أكرم سويتيز waxaad ka helaysaa macallimiintoodu sarreyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar dhamiso aad u xiisi doonteen dalbo hadda oo nagala soo xiriir ebril xalshan 63 أكرم سويتيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة أدنى لرادة وحنا كنا ولاي سويدن. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. adeer lacagtay doorashooyinka kaaga dhaceen meeqay dhan tahay waa 15 sano waxaan baraf ku soo jibinayo adeer 15 years إلهي قرقاره وادال مالين والب سبق عصب إيغو فرمايا حبيبتي رجادادي وفي عنده مربا هدي أبدو على وكو شيغي أستعمها هاي إيقوبتو كاسوهلة تاريخ دادي وإلهي مهدي انتاس بساكي موغين ها صح واي لكن أبدو على وحكالو إيشيغي إن معلوم بدن لإبافينا يعودي سودونا تلواي waxaa jiri kara markaas daruufo sababi kara inaysan gaarin baafintaada waayo xilli adagaa lagu jiro waqtigaas hib waxaan dareemayaa ciriiri inaan ku jiro kale sida aniga iyo nolosheeda in humaagna soo kala dhex galay kale ka waran haddii ay kugu dhici lahayd adigoo yar welina wax baranaya sidee noloshaada u maarayn lahayd ha israaraacinin waxaad tahay gabaraad adag welina wax barata qadarta alle inaan ku sawirnaa fiican alxamdulilah habboonka waran caawada haddaa casho u aadna liido guriga waa ku caadisan habeen kale maa noogu dhigtid xabiibti nagdhaafino caawada ani igeysa ku baryaa igu adkeen okay isdiyaara هاي جعفر يور هابا هاي وقت هرايا شو نقطة أبى هذا لما يدينه دي قرحة دعت قرية على وين تحسين أنت حتى شو موجود هذا اللي فكري أنا إله كرم الفوق مو جريمبو درس كاس كيسو بعشرة على مكان شغل كيما هذا waalidka ilmihiisa meeluu ku arkay natiisa joogin wuxuu dareemayaa in aada uga fogiyeen adigana si ciyaarna waxaad u leedahay diriskan jooga أبى تواصل كورس أي لخمس سنوات دي لخمتين حتى سوق فيلم يعني 10 sano ka hor adiga wax weyn kula tahay 20 sano ka hor ayay walaasha Ifraax iga dhimatay waxaan u malayaa shalay marka qaar waxaa bas dhahaa walaasha kaawin haddii joogi lahayd ciriiriyahan xoogaa waa kaa yaraan lahaa
hooyo 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 ma ilaadashidna jah waa kaas waa i qasta hal isa uma jeeda inaan wardinaayo wardi haysto hooyo anfulana maxaa rabtaa hooyo ani boon balaanka waxyar kasoo qabsanayna nafsa yaa maxaa tiri naa bal ii waran naa maxay tahay waxa maalin weyn la tabi waayo habeennimadan la tabaayo la raadinayo hooyo barya 20 daqiiqo le inoo nafsa axmed aan wadaayo yaray dhigeyso bataatanba gabadhan beri gurigooda ha aado hooyo sas maxaa u dhehe ma bixaysa le igu filane hooyo ceeb waa martiya noo taamaana waxaa maqli jiray dariskaa kumaan caddeeyo kumana madoobeeyo ee sidiisuu kaa dhigaa naa dhafartan tirada badan leh salaadii ilaahayoo lagu kicin la'yahay yaa hadday ka dartoy dibi dhashay ma haddaa iigu dartay habeen socod haddana hooyo qaladaa aaminsan tahay habboon waa gabar fiican sa amaleynaysa ma ahan haa waa qaldan anaa qaldan sax dhibaatoo dhanba waa aniga dhibkoo dhanba anaa keenay hooyo bari ay dhaan madan ma baxay laakiin afkaaga iga xir hadal dambe hadduu afkaaga ka soo baxo waa aad ka shalaayi doontaa haddana iga hortag naa iga hortag idhaafnaaya weli mistiyaarin miyaa habboon maya xoogaa cajisa isaaran habeenka ma kala iin karnaa bixitaanka dhib male waan iska joogeynaa absoo lagama yaabo inay farax nooshahay oo la xaday oo aan wiil dhiman waqtiga ilma laxada waqtigaas ma ahayn waxaa socday dagaalo aada u xun qof waliba ilmihiisa meesha uu geyn lahaa ayuu ka fikiraya markaas hooyadii ma nooleeno haa iyadaa ku xambaarsanayd jacfar kaaliya casheeya waaya iido eedada waxay ku joogtaa booska hooyada adigana waxaa lagaa rabaa warkeedii inaad aada maqashid adeecdid soo baxasheen سيدة الحمد لله في عنها يورا في عنها وحما بنت ما يا أبو يورا أبو محكا عصب والله أبا الحمد لله وحول بمالمهن وصو دعوة عصبهن هويو نبون زبير حرسي كلي أبون اسمه خشين وإذا ما يا أبو مالمهن أردت وحماك سكر أبو مال كافيتيريا ومقالة كميدان كوكولا من بعض أبون ما سعرتين حالة دي كورة سيدة هذه وفعنا ذا هذه ونفسنا وأنا بتقبتي وحين أوقاتي إننا معنا قدر نوع سوكر سنة يوكليها سيدي يعني marka waxay u jeesatay inay reerkii dhalay ay soo hesho geed gaaban iyo geed dheer inay u fuusho meel dhow iyo meel dheer inay ka soo heshay buraashadu u biyeysatay hadda aboon guriga kuma soo laabanayso sooma waayadan saasaan u gartay waay aaba ana aboon maxaan ka haleeyay waa iga fogaanaysaa aaba kaligaa kaama fogaanayso annagoo dhan ay naga fogaanaysaa waay xitaa taleefanka maxay iga qaban lahada aabo gabadhaas haddaa mawjado ku furan yihiin marka mawjad cusub ha ku furan adiga wax uqdaday kuu qabta ma laha aabo aboon inaan nolosha la wadaagaya ii muuqatay aboon aaba saas hadday tahay habboon maantay kuu baahan tahay maanta howl u taallaayo baadigoob bay ku jirtaa waa gabar waana kaligeed maantay garab istaag kaaga baahan tahay
waay halkan ka helaa kulley markay la noqoto ayada ku soo wici doonto makeen cashayne shalay waxaan is soo aragnay gabadha habboon ahayd waxaan ka wada sheekaysanay marka ay dhuntay sida ay u dhuntay iyo sidaan u soo helnay iyo siday reerkeena ugu soo biirtay walaashay wiil naga tagtay badana salaamik waxay nooga baahan tahay garab istaag xoog leh gabadhii waxaa ku soo furantay howl aad u adag waxay bilowday inay raadiso reerkeedii marka waana gabar waana kaligeed waxaan looga baahan yahay dad kale malaha inaan aad u garab istaagnaano laga rabaa laakiin habboon iyada magaalada ayay ka taqaanaa ila joogtaa ilaa hadda kulley aaday iila qurux badneed aniga qof guri dayacan ka soo kacay uma ekeen si kastoon ula hadlayna waa iga diiday inay soo raacday guriga timaado ilaahay meesheeda ku nabad yeelo aamiin hooyo habboon abtiguuleed ma dhalin miya cumarow habboon iyadoo yar maaragtay fiiri jooji sheekadaas hadda maahan mar kale looga sheekeynaa mister aabba mar kale ku soo dhawo guriga reer ducaale mar kale iyo mar kale mahadsanid aabbo haye adaa mudan haye ani waa baxaya hooy biyo ku soo wadaya hooy igaraal naqnaa hooy gabadhaada muhiimiya hooy waxaad qofta keliya asirteeda u sheegan jirin waxaan ahayn hooyo gabadheeda saaxiibo ah hooy bismiya aada kalsoonidaas ma burburtay saaxiib miila tihid hooyo anigaba gabadheedii aan jeclahaa tahay saaxiibtinimadeena ma dhammaanayso laakiin adiga rabshadaa wadda iga jooji ay hooy waxaan ku jeclaa hooy qofa adigan ma haystay anigaba hooyo adiga cid iga kaa sokayso oo iga kaa dhow ma jirto gabadheeda aan jeclahaa tahay qalbiyana aan u jeclaa hooyo hooy macaan anigoo ku jeclaa sidoo kale hooy hal waxaa kaa codsanaa habboon si khaldan oo fahantay waa qofta keliya iskuulka ku dayin jira hooy safar ay u socotaa 3 maalin bisle uga hartay oo bariya 3daas maalin aan la joogto asii iga daawo 3 maalmood oo keliya soo maaha waa kaa aqbalay hooy mahadsanid oo jeclaa maxaa samaynaysaa habboon higaraal dhaqo higo inaan bax qorsheyga ma ahayn laakiin way igu dhalatay yara dhegeyso bataatanba gabadhan beri gurigooda ha aado xal canaantay hooyo canaanadaysaa maqashay saas darteed go-aanaa gaartay inaa baxdid mana ii sheegaysid saas maaha saaxiibo ku naan habboon hibo marabe adiga hooyadaa darteena isugu dhacdeen xaggee aaday marka ma aqaan habboon intaan ka badan kurba dushaas ka saaran bliis waa ku baryaa intaan laha kuuga ekaato hiba baa iska warhaynana wax walba ila soo cusboonaadoo kuu soo sheegan ma bixaysid habboon hal lama jiifanin ha ka welwelin arrinta hooyo baa xaliyay sidee ma jeclayn hooyada been inuu sheego laakiin waan ku khasbanaa waxaa ka dhaadhiciyay 3 maalin kadib inaa safarta insha allah 3 maalin kadib isbitaal amaanaha ha ka welwelin habboon 3 maalin kadib meesha aadi lahayd waa wada joogaynaa bisiga ogolaab inaa arrintan axmed la socodsiiyo si uu ugu dhaadhiciyo hooyo
wada joogitaankeena. maya waa ka xumaa hibo laakiin axmed aniga isma naqaan arrimaha nolosheeda ma la wadaagi karo. waa sax isma taqaanin laakiin axmed waa walaalkee waana wiil fiican asigoo keliyaana garabna sii karo saa guriga ku wada joogno dhammaanteena waayo ani hooyo 2 mar been u sheeg mana ii aaminayso intaan kadib bis intaan kadib xal ma hayo waa wada bixina haboon oo ku raaca ninka heray iskare ka waran badsaaka quraacda iyo seetar dadaal badanaa ka muuqdo laakiin waa la socon doonaa insha allah dadaal badanaa ka muuqdo maxaa ka wadaa cuntada way fiican tahay ka wadaa wax kale ma jiro wax kale uma leeyo see u fahamtay ii sheeg wax kale ma jiraan istaag rog alaabtan naga abuur أنا alaabtan keligay ma qaadi karo way ugu badan tahay أنا ku caawinayo xaaskaaga waxaa u sheegtaa gurigaan inuu gurigeeda yahay isan marti ka ahayn sihaana howshaan iyo waxaan ku cuslaaday ha ka caawisiya أنا وشيء شابك طيب كان شخص قاعدي أنا بقول شيء هالمرة بس كون خير بديا fiiri adiga wax yar xataa gabadha intay guriga howshiisa inta la qabsanaysa wada xishoobaysa sidoo kartid waa aniga jikadan keliya waa ku dhintay day jikada la galaynin halkaas keliya tabtaad haboon neefta uga dhigtay maba xishoonaysa dadka wax yar xataa laga xishoodaa haboon hawar saaka ma caajisantaha xeer madaxa xanuuna waa dareemay hawar biyo badan cab waa caafimaade insha allah teeda kale xalay waa xanaaqsanaa gabdhahayga iga raali noqdaya inkastoo habeen socodka aana jeclayn dhib ma laha hore anagana ku raali gareen waayo waalidiinta mar walba wanaageena jecelyihiin waa saxan tahay 3 beri oo safarkaaga ka dhiman gurigaan marti kama tidyaa habarir gurigaagi waayaa hibo maana weydiinine safarkaaga waa halkee عذر عيبا تاجر جو إلاف عزومتي وعنات هذا أنا صبتين حقيقي هذا أنا ذيك ما هتعلنا يعني waxaas maxaa ka macnaa soo ma ogid in adeerkay ku dhalay waxaas wax ka badan ay ugu leedahay taada kale gurigaada waayo waa filay xaqiiqadii taas adeer aad ama maasantiin adeer waxaan ku weydiiyey gabadhii yaradoo maalintii noo adeegaysa yahayd hortale ma taqaanid soo ismahaantii yareed soomaanaad xambaari jirta ismahaan aad saas u weynaato u wacnaatay maxaa dhacay meesha limaa la joogaa waa la weynaana waa la koraa sooma adeer adduunyadan waa iska gaaban tahay waa iska wax yar bal waxaan isdhahayo ama wax kuu saa'idan sooma maxaa dhacay xaas iyo carruur soo ma lihid of course adeer waa leeyahay xaas carruur midda kale waa ogtahay adigoo hal xaas iyo 2 xaas iyo nin maarayn karaan sooma midda kale yaa ka wacan oo ka wanaagsan gabar ehelaa taqaan edab leh famili fiican ka dhalatay kuma fahmeen warka ii jilcigo hoos u dhaadhacba adeer gabadha ismahaan rabay inay siiso idinka diaspora daatiyan dhaqanka Soomaalida dhan waa iska ilowdeen yaa gabar markii la soo doonanayo geeda loo soo fariisan jiray gogol loo soo geli jiray maqaayadaha ma igu weydiinaysaa inkastoo aad geydo in adeertaa tahay wax ka xiga aysan jirin haddana waxaa la rabaa inaad dariiqi u soo marto
teeda kale xilliga hadda lagu jiro waa gabar la bixinayo goormay ugu dambeysay ayadoon ogeyn waxaa la rabaa xaggeeda soo marta ayada ka soo dhammaysato is soo fahamtaan annaga faataxa iyo ducaa idinkugu daraynaa gabadha waa in adeertaa wax kuu diidaya ma laha okay adeer taas igu hadlay aniga anaa xaggeeda soo marayo أنا كسر دمنا إن شاء الله أنا قبل صعنا كوي ما نينا عندي أكو شيء يعني أبغى وإحنا قاعد حيان أنا أكو شيء جمال waxaan u maleynayaa waxaad iigu wacday inaad rabto inaad wax ii sheegto ma waxaad rabto inaad su-aal ii weydiiso intaas taleefka ii weydiin karta maxaa iiga weydii weysay maya su-aal keligeedna ku weydiin ku wicin sidoo kale waxaan rabay inaan kaa raaligeliyo taleefanka kaa qaban waayo waan kaa qabaa raaligelinta aniga xataa waxaan ku wacay waxaan rabay inaan wax kuu sheego waxaa laga yaabaa inaa isdhahdid xamdiga waa lantahay laakiin kaa ka badan dareenkayga ma qarin karno waxaa adiga ii sheegi lahaa Soomaali kale inay balansato ma ku fiicnayn maadaama maanta aniga ku balansado maya maanta ayaa rabaa inaan kuu sheego maya ii sheeg Jamaal iska dhaaf maalinteeda ayaan ku balansanayaan maanta adiga ayaa iskale weydii waxaa i weydii rabto maya caadi dhimaha ii sheegi kartaa maya Jamaal maalin kale ayaan ku balaminaa iyo weliba meesha ku habboonta aniga habban waxaan naga dhexeeyaa kuu sheegay boliis oo ku baraya iga dhaaf su-aalaha inaan sheegin badanayaan ka qaado qof hay waa bixinaan kan maxaa dhacay Jamaal hadda leeba imaanee waxay raashikaysan hanti laba arrin aan ku wacay aniga midda koowaad waa inaan kaa raaligeliyo taleefanka kaa qaban waayo taasna waa iga aqbasho waa mahadsan tahay midda labaadna waxay ahayd inaan ku weydiiyo su-aashaan maadaama ka cudur daaratay waxaan qabanayna waa bixinaa Jamaal subar ayaa ii sheegay inay habboon inaan walaalo ahayn sababtoo iigu sheegana waxay tahay habboon aan jecel yahay Subayr Esther waxa la dhahay gabdhaha Sacuudiga jooga guriga ku jiraan run miya ee ku sheeg hadalkaas xirsiya xirsi ma sheegin wax oo caam ah oo la wada ogyahay waaye may wax la wada ogyahay maahane Sacuudiga ma hore u aaday may Sacuudi ma aadin Sacuudi ku ogaatay warka maxaa ka doonaa Sacuudani hooyo hooyo see wax ku gaareen hooyo maxaa kugu dhacay ay taaban sidee u dhaxday fadhiga tartiib kaale ka tartiib bismillah tartiib bismillah الرحمن الرحيم الله يتابعنا هو يتابع الله قعنتها هاي انت فديسة كان فديسنا الله جمالي وعا جمالي وعا قعنتها وجبتي الله قعنتي ومطالة جمالي وعا جمال هاي وجبتي بسم الله هيا جبتها maxaa ku dhacay hay'adda idii maana Jamaal maxaa dhacay xamdi hooya jabtaa liisoo sheegay xaafadanaada hay isbitaalkan taga ii keen baraaji saaray ay oo soo wacaya hooyo diin ku keenaa